taageeraan ka mid nahay xilligii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inay gaalada heshiis galeen heshiiska ay galeen waxay ahayd ay nabi maxamed la galeen qofkii muslim ah ee gaaloobay inaan loo soo celin qofkii gaala ee muslimana in loo celiyo gaaladii heshiis kharaar buu ahaa go'aanka uu qaatay nabigu waayo ujeedo ka weyn buu lahaa sallallahu alayhi wasallam inana maanta waxaynu halkan ugu nimin waa xaflad kubadeed inaad mooraligiina aad dhistaan waxba idima soo gaarin hadday wax idin soo gaareen caalamka oo dhan baa daawanayay hadday khalad tahay hadday sax tahayba wixii dhacay wax caalamka oo dhan arkayay bay ahaayeen marka waxaad ku tala gashaan inaad guulaysateen laba jeer waliba aad guulaysateen mar aad ku guulaysateen tiiman badan aad soo dhaafteen oo ciyaar wanaagiina la arkayay iyo sida aad runtii xishoodka iyo xishmada iyo ciyaar wanaageedii ka muuqanayay marka labaadna tacaddigii iyo go'aan xumadii la idiin keenay sida aad go'aanka uga qaadateen ee aad banaanka uga baxdeen arrintii cadaalad darrada ahayd ee aad raginimadiina aad tirahdeen arrintaasi nooma cuntanto aad baad ugu mahadsantihiin waa raganimo go'aan wanaagsan baad qaadateen marka waxa la rabaa inaad halka ka sii wadaan aydan niyad jabin ciyaar fiican baad soo bandhigteen runtii waa kooxda kaliya aan garoonka u tagay ciyaar wanaageeda marka waxaad ku talagalashaan ciyaar fiican baad ciyaarteen waxaan rabnaa inaad halka aad joogtaan aad ka sii wadaan adduunkana dadka maamulka u shaqeeya ama dadka jooga ay way isbedelayaan ma aha wax weligeed taagnaanaya waxa laga yaabaa maanta haddaad sidaa kaga tagtaan inaad bari ka maalin aad ku guulaysataan insha Allah taala waana rajaynayaa haddaad sii wadaan inaad guulaysan doontaan haddii Ilaahay idin ka dhigo inaad sidii aad kooxdiina u dhisnayd aad u sii dhisnaataan aydan ku niyad jabin ciyaar wanaagiina aad sii wadaan insha Allah aad waxaan u rajaynayaa inaad soo bixi doontaan haddii Ilaahay idin ka dhigo cid kasta oo cadaalad darro samaysaana meesha ma joogayso waxaad aragteen siyaasiyiin badan madaxweynayaal badan oo aan hadeer shaqayn waxa laga yaabaa gobolka ala inna nasrallahi qariib dadka gobolka haysto dhammaan wii gambeyn la bedela suurtagal ah oo aysan sii joogin marka waxaad ku talagalasaan arrintan hadeer dhacday ma aha arrin sii jiri doonta ciyaartii iyo sidaad isugu xidhnaydeen iyo taageerayaashii runtii aan waliba gabdhaha u mahad celinayo idinkoo mar kastoo aad ciyaarasaan xishoodka iyo amniga iyo wanaagga runtii aad meesha la joogteen inaad sii laba jibaartaan insha Allah taala aadna iska ilaalisaan in qof suuq wax laga yiraahdo iyo in taarabuunku wax yiraahday arrimahaas inaad iska ilaalisaan runtii ciyaarta waxa lagu qiimeeyaa ciyaartooyda ciyaarasa xishoodkooda iyo taarabuunka xishoodkiisa runtii inaad ku tala gashaan haddii Ilaahay idin ka dhigo halka aad joogtaan meel fiican baad joogtaan niyadiinu inaysan xumaanin inaad meesha ka sii wadaan haddii Ilaahay idin ka dhigo go'aanka aad qaadateen ma aha go'aan liita waa go'aan raganimo leh runtii aan idinku taageersanahay kulay kay ma shakhsi ahaan anigu aan idinku taageersanahay go'aanka aad qaadateen oo go'aan aad wanaagsan aha aad baan idinku mahad celinayaa waxaan u maleynayaa intii odaygu yiri baan ku tutay waan mahadsantihiin kooxda ka ah waad guulaysateen waxaan jecelahay marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabaddan quruxda badan intii ciyaaraysay sacabka mar labaad looga tumo waynu ognahay oo laascaanood baynu ku wada noolnahay in yaroo kooban oo isnaqaano baynu nahay ka way guulaysatay gar iyo gardaba way guulaysatay annaga aqirayna waxaan jecelahay xafladan caawa inaa u niyeysataan idinkoo koobkii qaaday inaa u niyeysataan mar kale waxaan aad iyo aad u hambaliyanayaa dhiirigelinaynaa ka saxaafad ahaan aanu garab istaaganahay maadaama aanu nahay dhalinyarada laascaanood dhalintii ciyaaraysay uu ugu horeeyo dige muuse abubakar oo runtii ahaa shaqsigii maalintii ciyaartii ugu dambaysay aad uga ciyaaray qof walba oo inaga mid ah haddaynan dhiirigelin waxba ma noqonayno marka labaad waxaan rabaa inaan u galo ujeedkayga waxaan leeyahay hambalyo cadaaladdarra lagu reebay waxaanu go'aan ku gaarnay cadaaladdarradii meeshaa ka dhacday in aan cagahayga ku soo celinno
haddii ilaahay idmo koobka haddaanu ku guulaysano waxaanu ballan qaadanaa inaanu kooxda kaah u hibayno koobka haddaan hantiilaha magaalada ahaan lahaa 1 milyan baan ugu deeqi lahaa kaah waxaan ku soo gabagabeynayaa kaah iyaynu laabta keliya ku haystaan waa inaan soo bandhignaa jacaylka aan kaah u qabno kaah waa kaah u soo baxay gobolka sool mana demi doonto waa kaah jiri doona kaah guulaysta weliga asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu dhalinyaradan agaasiman wiilal iyo gabdho isugu jira wajiyadan farxaddu ka muuqato inaan ka soo qayb galno aad baan igu faraxsanahay waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo agaasinkii xafladda dadkii qabanqaabiyey guddidii xafladda inoo qabanqaabisay baan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo waxaan kaloo rabaa iyaga inaan mahadceliyo hawlihiina qiimaha badan sharaftay karaamada badan markastayna garab taagan maxay ahayd tooy meel aanan kaga halin iyaguna aad bay mahadsan yihiin ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka kooxda kaah taageerayaasha balaayarinta kooxda iyo dhammaan maamulka sare ee kooxda alxamdulillah horta ilaahay maadiska halkan isugu keenay kooxda kaah horta kooxdii labaad aan taageerayay ahayd marka kooxdeeda laga yimaado kooxda labaad aan taageeraha koowaad u hayay bay ahayd waan jeclaa tartanka inay meel fiican ka timaado laakiin nasiib darro iyo maamul xumo iyo waxyaabo kale oo tartanka ka jiray ayay ku hadhay wayna u qalantay horta kooxda u qalantay koobka bay ahayd marka la eego taageeraheeda kubaddeeda iyo isku xidhnaanshaheeda ay halkan ku soo gaadhay bacd al-salaam waxaan u sheegayaa dhammaan taageeraha kooxda SVK meel walbay joogaan iyo nooc walbay yihiin iyo hablo iyo wiilal waxaan leeyahay kaah maanta koobkii kamay hadhin kaah maanta haddaad aaminsanayd inay koobkii ka hadhay kamay hadhin oo koobka waynu qaadnay markaan ka soo gudbo dhinaca koobka waxaan u sheegayaa taageeraha kaah ama balaayarada kaah ma arag anigu intaan kubad ku soo dhex jiray horta aan suka yara sheegay anigu waxaan u badanahay safarada waxaanahay balayar iska safara badan ma arag anigu koox kaah ka sharaf badan ka ciso badan ciyaartooyada uga fiican ka tayo badan ma arag anigu waxaan leeyahay kaah waan nii hambalyaynayaa cagtiina kuma idin hadhin sii wadaa dadaalkiina oo aan kala had lahayn ay soo qabanqaabiyeen waa xafladdii aanu ku hanannay haddaanu nahay kooxda KFC ee ku ciyaarta magaca wasaaradda maaliyadda ee gobolka sool koobkii lagu dhigay gobolka sool ee loogu magac daray soolka runtii annagu caawa dareenkayga lama soo koobi karo koob haddii la qaban jiray koobkii caawa waa kan waanu qaadnay oonu ku guulaysanay waxaan idinku bogaadinayaa runtii koobka qalinkaa ee meesha yaalla inuusan kaa ka qiimo badnayn annana caawa waanu haysanaa waxaa la yidhi oday baa habartiisu ka adkayd baa la yidhi markaasuu maalintii dambe wuxuu yidhno habartan see ka yeelaa saa mar kasta oo jaanis helo wuxuu ku ducaystaa habartan in ilaahay dhaafiyo habar dhaanta siiyo maalintii dambe wuxuus yidhi dhabarkaaga dambeesow habartii baa taagan isagoo ducaysanaylo ilaahay waa habartan iga kaxe ilaahtan ilaa mid dhaantaysi bay dhabarkiisa soo istaagtay markuu saa u eegay buu yidhi ilaahay ma odhan karo habartii ma maqashan karo ilaahu habartii habar dhaantaysi markaasuu ilaahu ballantu waa inoo sideennii horta kaah waxaan leenahay horta guushii iyo wanaaggii aad ciyaarayseen sidiinnii haydiin ahaato haddii badanaa dadku waxay dhahaan dadka kubadda ciyaaraay ma aha lama odhan karo waa dad dibjiriina ama kubadda waxaa laga aamino kubadda nin kasta waa habdhaqankiisa haddeer waxaan jecelahay kooxdan waxaa ku jira rag qaybkood master ii baa ku jira oo ciyaara qaybtood baa digriya oo aad sanad walba ku hartaan shaashadaha iyagoo qalin jebinaya marka kooxdan waxaan odhan karaa wax kasta waa ku jiraan marka kollow qof kasta ay hal galab baan garoonka tegayo galabtii u dambaysay bay ahayd marka waxyaalaha qaarkood markaad aragto waxaas odhanaysaa waad arkayseenoo dad waaweyn baa taageerayay ama si walba ha laydinku reebo laakiin waxaad ogaataan guushu dee mar walba inay dal dhalata ha u qaadanina mar baa laydinka helayaa mar baad helaysaan laakiin wanaaggii iyo ixtiraamkii iyo habdhaqankii wanaagsanaa iyo guulihii aad gaadheen alxamdulilah koobab horaad qaadeen maaha mar walba inaad tiraada wixii annaga shabka u dhiganana
laakiin tani way dhisatay laakiin ta dambaynu eegi doonaa insha allah